daawadayaal waxaan doonayaa inaan in yar sharaxo Faratoon maadaama oo la doortay gudoomiyihii baarlamaanka lagana doortay nin ka soo jeeda gobolada Sool khaasatan beesha caadaysan ee Dhulbaante in arintaasi iyo waxa uu ka tari doono Faratoon iyo xaaladda laascaanood oo hadda la rabo in la soo afjiro maadaama oo la doortay gudoomiyihii baarlamaanka oo ahayd hawsha ku xidhnayd in la soo afjaro barnaamijkaasi laascaanood ee daba dheeraaday. Okay, horta mid ogaada dowladda Somaliland inta in la kumay ahayn in magaalada laascaanood ay qabsato kana saarto huwanta laakiin waxyaabo fara badan ayaa la xeerinay. Waxa la xeerinay kow maadaama dadka halkaas ka dagaalamaya ay leeyihiin reer baan la dagaalamay khaasatan la yiraahdo beesha Isaaq oo ay yihiin taliyihii ciidanka madaxweynihii gudoomiyihii baarlamaanka uu ka cadhooday dad badan ay ka dareereen oo xilalka hay Somaliland in la diidanaa ilaa shir gudoonka cusub la doorto in xoog lagu qabto magaaladii laascaanood. Haddaba maanta go'aanku wuxuu yahay in magaaladii laascaanood xoog lagu qabto lagana saaro huwanta si dadkii loo soo celiyo loona qabsado magaaladii oo dhammaystiran. Okay, dagaalka laascaanood muddo 7 bilood u socdaa iyaguna wax natiijo ama samayn laakiin dad badan baa kaga dhintay waxyaabo fara badan baa la dhowrayay. Okay, maanta haddaba maxaa la gudboon taliye Mahad Cambaashe ayaa waxa uu joogay maalmahanba magaalada Hargeysa isagoo madaxweynuhu uu ay ka tashadeen arinta laascaanood iyo sidii loo soo afjari lahaa hawshaasi iyo golaha wasiirada inta guurtida kaga jirta baarlamaanka odayaashii duqeytida garaadkii kale ee garal dagaalka ilmaadeerka yihiin iyo niman fara badan oo cuqaal iyo salaadiin iyo waxyaabo fara badan bale markii la tasho ka soo jeeda beeshaasi iyo saraakiisha ciidanka iyo golaha wasiirada markii madaxweynuhu la tashaday wax la isla gartay in gudoomiyaha baarlamaanka la doorto. Mahad Cambaashe wuxuu maalmahanba u joogay bal in arintaasi Faratoon meel la saaro. Haddaba huwantii maxay ku noqotay nimankii huwanta markay maqleen Faratoon baa la doortay qalbiga wada jabay dhammaantood way qaylinayaan waxay leeyihiin yacni waxa ma soo kordhinayo ma iman karo hanoo yimaad iyo idin dhageysanaya. Huwantu dhinac walba way ka fashilantay wixii ay wadeen wuxuu noqday baatil waxay noqdeen niman aan wada socon waxay noqdeen dagaal aan ujeed lahayn magaalo kaliya dadkeedii dagaal la geliyay waxa laga dhigay Dhulbaanta baa reer lagu xuquuqiyay ama dowladoodii 9 jiho oo kala duwan ugu yeeshay. Haddaba ujeedka aan ka hadlayo waxa weeye Faratoon waa la doortay muxuu ka qaban karaa laascaanood goorma la tagayaa barnaamijkaas sidii loo dhameynayay ayaan doonayaa inaan hal iyo labo idinka taabto. Okay, Faratoon wuxuu noqonayaa odayga hogaaminaya baarlamaanka guurtida golaha wasiirada ee reerkaasi kaga jira. Taliye Mahad Cambaashana wuxuu noqonayaa ninka hogaaminaya ciidamada qaranka ee toos u gali doona magaalada laascaanood kala sifayn doono magaalada laascaanood. Intaa marka la isla helo ciidanka taliyeyaasha kale ee ku jira ayaa iyaguna noqon doona hogaamiyeyaasha meesha dhaqaajinaya. Okay, sidaas ayay noqonaysaa sheekadii ku soo afjarmaysaa reer baa reer dilay cidda dagaalka hogaaminaysa barnaamijka wada waxay noqon doonaan dadka Dhulbaante ee xilalka wasiirada baarlamaanka wuxuu dhan ka dhacay. Okay, beeshii caalamka ee u sheegayeen in gudoomiyihii baarlamaanka oo beesha ka soo jeeday uu ka cadhoodana way soo afjarantay. sheekadii ay ku akhriyeen beesha caalamka iyo beentiina way soo afjarantay. waxaasoo dhan oo la isku geeyay ayaa haddaba la dhaqaajinaya. dagaalka jihooyin fara badan oo nidaamsan ayaa la sameeyay intii hore waxay ahayd ku ururiya halka ku haya waxaasoo dhan waxa uu yeelan doonaa dagaalku ma aha un kaasoo kaliya dad yow fara badan oo odayaal leh oo cid kasta oo la imka hadaan isu soo dhiibno dadkeegina waan la culoobanaa arma xataa gudoomiyaha baarlamaanka xataa loo dooran waayaa Somaliland oo ay ka sii xumaata. waxaana la eegay in gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland hadii la dooran waayo in intan joogtaana dareerayaan nimankii huwanta horta sugayeen taana way ku fashilmeen baarlamaankii Somaliland si gobonimo loo codeeyay way idinka arkay. Okay, Faratoon markuu baarlamaanku soo noqdo uu hawshiisii qabsado waxa uu tagayaa bari taliye Mahad Cambaashana ciidanku la wareegayaa halkaas markaasi dhufaysadii laga kicinaya nimankii huwantaha dhan walba oo laga soo xiray waana loo diyaariyay wixii qalab ciidan
iyada oo la yareynayo khasaaraha inuu magaaladu burburto, iyada oo la yareynayo dhimashada iyo dhaawaca ciidanka, iyada oo la yareynayo khasaaraha gelaya waa mid aad loo diyaariyay waayo maalmahanba waxa ku sii qulqulayay kumayaal ciidana oo kala duwan oo gurmadkoogii leh oo gargaarkoogii leh oo qoladii caafimaadka leh oo booydahoogii shidaalkaagii oo saanadoodii hub dhaqaale caafimaad dhan walba uu u dhammaystiran yahay hal sano oo kaamila hadday dagaalamaan aan dareemin. Okay, waa niman shaqadoodii haysta yani waxay ka dhigan yihiin ninka wasaaradda u shaqo tagaya gaariga soo qaadaya haysta ka taga nidaamsan buu ninka ciidankii dagaalka markuu ku jiray dhiigiisii baa u yaala caafimaadkiisii baa u yaala wax kasta u yaala waa loo nidaamiyay. Okay, waxa la rabaa markaa in sheekada la soo afjaro dagaalku dhinacaas oo kaliya ma noqonaye dadiyawgaasi markaa soo islaam yani maxaan idhaahdaa soo noqonaya ee doonaya in ay dib dalkoogii iyo waxoogii la coleysiiyey markay soo hungoobeen ee arkeen in magaaladoodii uun lagu diray oo arkeen in maanta ma aragtay beeshii dhulbaanta uun lagu diray Somaliland wax kasta soo waayay ayaa waxay rabaan in markaasi faratoon iyo odayaasha iyo wasiiradu ay iyaguna soo shukaansadaan ay soo dhaweeyaan waxaanad maalin dhow arki doontaa guuto Hiblaayo oo soo goosatay qoladaasi dhulbaantay oo soo goosatay ciidan ka soo goostay huwanta haddaad maalmahan arkayseen niman badan oo goosanaya ciidan badan oo waa la naqalday laad maalin dhow arki doontaa wayna socotaa arrintaas dad badan baana diyaara oo sugayay untaas. madaxweyne Muuse Biixi way ka go'an tahay inuu barnaamijka dhammaystiro odaygii baarlamaanka loo dhiibay faratoon waa nin ilaa 1991 sool buu ka ahaa barasab 91 ilaa 93 wasiir arrimo gudeed buu soo noqday wuxuu soo noqday wasiir caafimaad wuxuu soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda intaasoo wasaaradood baarlamaankii 97 ilaa 2003 ee 25 la bedeli doon wuu ahaa يعني وانين خبرت أولى كلا يقان odaynimo ku wada hawshaasi wada xagga kalena taliye mahad cambaashiba saawixiisii ugu sii daynaya kadib magaalada Laascaanood waa la qabanayaa waxa la wareegay mahad cambaasha maamulkeega la wareegaya golo deegaan ayay u soo sameynaysaa wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland golaha deegaanka ka talinaya nidaamkeegii baa weligiin barnaamijyo buluuga meel kasta ku qora sideedii intaa kadib waxa loo yeerayaa dadkii qaxay ee maantida ahaa ee dhibaatoobay ee qaxay oo daalay oo isla yaa mar uun idinku celiyo magaaladiinii ayaa loo yeerayaa kadibna chance damba lama siinayo meel kasta oo huwan afar xabba isku soo urursaneenba daroonta dul istaagayso BM baa la dhacaya sheekadaasi waxa weeyi muddo kooban baa loogu talagalay in lagu soo afjaro dadka markaasi ka maqan magaalada Laascaanood dhibaataysan meelahaasi ku dhiban meel kasta yaacaya de abaaraha iyo ma aragtay dhibaatooyinka iyo khasaaraha iyo caafimaad la'aantii waxbarasho la'aantii waxa soo saameeyeen magaaladiinii wada soo noqonaysa dalkiinii iyo dawladdiinii ba gacanta ku qabanaysa dawlad la'aanta balaayada khamriga dhibaatada waxa soo dhan oo dhacayana way soo afjarmayaan jamhuuriyadda Somaliland magaaladeedii way soo xishanaysaa dalkuna sidiisiiba ku noqonayaa wax kastaabana sidiisiiba ku noqonayaa intii la qalday iyada soo laaban intii ku soconaysa fikirkaasina waa wax dhamaaday mar dambana dagaal dhici maayo cid kastaana idin mudaharaad mayso cadawga jamhuuriyadda Somaliland iga gaarsiiya aad iyo aad baan idin wada salaamaya